wasiirka tamarta iyo biyaha, wasiir dowlaha xafiiska wasaaraha, wasiir ku-xigeenka warfaafinta, meediyaha, dhammaantiin waa idin salaamay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. afartayada wasiir waxaan ahayn guddigii uu u xil saaray ra-iisul wasaaraha inay xaqiijiyaan xubnaha guddiga doorashooyinka heer federaal ee laga soo cawday inay waafajiyaan habraacii lagu heshiiyey 17 September iyo 27 May shirarkii dhacay inay waafajiyaan. Sida la socotaan hore aan idinkugu sheegnay 34 xubnood ayaa waxay waafaqi waayeen kriteeriyihii ama shuruudihii lagu heshiiyey inay xubnahaas ay ka mid noqdaan guddiga doorashooyinka ee heer federaal ee baarlamaanka iyo aqalka sare. 34 xubnood waxaan u celinay dadkii ama dowlad goboleedyadii xaqa u lahaa inay soo magacaabaan iyo guddoomiyaha aqalka sare oo la siiyey inuu dhankiisa ka soo magacaabo 6 xubnood. magacyadii dhammaan ama badankood waa ay noo soo urureen. waxa uu naga maqan hal dowlad goboleed oo aan ka codsanayno inay si degdeg ah ay noo soo gaarsiiso xubnaha laga doonayo inuu soo magacaabo. waxaan dadweynaha Soomaaliyeed u sheegaynaa heshiiska waqti kooban ayaa ku qornaa, dib u dhac yar ayaa jira. dib u dhacaasna waxaa keenay soo urur la'aantii xubnaha ayaa keenay dib u dhaca. haddana waa inoo dhowdahay waana ay soo urureen. waxaana ballan qaadaynaa in xubnaha la soo qoray aan dib u eegno oo aan waafajinno heshiiskii 17 September waxyaabihii lagu heshiiyey dhanka da'da, inuusan jago siyaasadeed haynin, inuusan ciidanka ka tirsanayn, inuusan shaqaale rayid ahayn iyo inuu dhexdhexaad yahay. arrimahaas oo dhan ayaan marsiin doonaa. intaas markii aanu samayno kadib ra-iisul wasaaraha oo isaga ah inuu kor joogteeyo arrintan iskana eego wixii loo soo gudbiyey ayaa saxiixi doona. sidaas ayaana lagu sii dayn doonaa in sha allahu tacaala. waqtiga waa cariiri oo xoogaa waqtiga waa yaro dheeraaday waxyaabihii lagu heshiiyey. arrintaas waa ka cudur daaranaynaa. cudurdaarkaasne waxaan u gudbinaynaa shacabka Soomaaliyeed iyo international community-ga oo mar walbana soo warsanayaan hawsha maxay u dhammaan laadahay. waxaan ballan qaadaynaa marka xubnaha dhiman ay noo soo xaadiraan si degdega aan u kala hufno, kadibna si degdega loo soo saaro. intaas ayaan rabnay maanta inaan la wadaagno shacabka Soomaaliyeed. aad iyo aad ay mahadsan tihiin sida aad noogu sabraysaan oo noogu dhursugaysaan. waa mahadsan tihiin. wassalaamu calaykum.